baaskiilka arkaysan kala qiimihiisa waa 3620 gini ama lacagta pound Ingiriiska taasoo u dhiganta lacag ka badan $4,200. Taydana xabad kamida baan soo gatay soo saaxiibayaal markale muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay baaskiilada. Waxaan kula wadaagi doonaa laba qodob kuwaas oo kala ah ka faa'iideysiga baaskiilada iyo qiimaha baaskiilada ay ka joogaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub. Intaan muuqaalka u guda gelin haddii aad ka mid tahay asxaabta hore noola joogtay waa mahadsantahay. Haddii aad nagu cusub tahayna waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biidid. Marka laga tago YouTube waxaan leenahay page Facebook iyo sidoo kale Telegram kawaas oo labadaba aad nagu soo biiri kartid. Linkoodana waxaan dhigayaa qaybta hoose. Haddii aan ku soo laabto muuqaalkan saaxiibayaal qodobkooda wuxuu ahaa ka faa'iideysiga baaskiilada wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub. Siyaabaha looga faa'iideysto waxaa ka mid ah in lagu shaqeeyo baaskiilka laftigiisa inuu noqdo daabad wax soo saar leh. Siyaabaha kale loo isticmaalo waxaa ka mid ah in dadka qaarkood shaqooyinka ku aadaan mararka qaarkood waxaa arkaysaa arday iskuul oo isticmaalaysa si macnaha iskuulkooda ugu gaaraan. Iyo intaa waxaa sii dheer saaxiibayaal inaad arkaysid marar badan dad u isticmaali sports ahaan oo ku jimicsanaya. Qodobka koobaad ee ahaa ka faa'iideysiga baaskiilada inta haddaan kaga gudubno waxaan u gudbaynaa qodobkan labaad oo ahaa qiimayaasha baaskiilada. Halkan waa dukaan ama store lagu gado baaskiilada. Hadda baaskiilka arkaysan kala qiimihiisa waa 3620 gini ama lacagta pound Ingiriiska taasoo u dhiganta lacag ka badan $4,200. Sidoo kale noocaas u jeedaan waxay ka mid yihiin noocyada looga shaqeeyo delivery-ga waana baaskiil elektarooniga. Runtii dhalinyarada isticmaasha baaskiilada aad iyo aad buu xiiseeyaan noocan qiimahaana wuxuu u dhaxeeyaa $1,000 ilaa $2,000. Aniga laftaydana xabad kamida baan soo gatay kanaad hadda u jeedaan waa midkaan soo gatay. Wadamada Yurub markii la joogo saaxiibayaal baaskiilka wuxuu ka mid yahay ama uu ku jiraa gaadiidka aad iyo aadka loo isticmaalo ama sida weyn looga faa'iideysto. Waxaa intaa dheer uu leeyahay spare parts-yadii meelihii baakinadaha iyo sidoo kale wadooyin gaar ah oo loogu talagalay isticmaalka baaskiilka. Muuqaalkeen intaas ku eegaya saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka like noo saartaan sidoo kale subscribe ana tiraahdaa.